maareyn kartaa waqtigaaga. Maxaa loola jeedaa maamulka ama maareynta waqtiga? Waa hab loo dejinayo nidaam waqtiyeed si loo qabto hawl. Sidaynu ogsoonnahay waxaynu wadaagnaa dhammaanteena oo aan idna u gaar ahayn 24 saacadood maalin kasta. Saxaabiga la yiraahdo Abdullah ibn Mas'ud Allah ka raali noqday ayaa laga soo wariyay inuu yiri waxaan aad u dhibsadaa in aan arko qof aan waqtigiisa ka faa'iideysanayn arrin adduun ama mid aakhiro. Haddaba su'aashu waxay tahay sideen waqtigeena u faa'iideysan karnaa? Mar walba oo aad ilaaliso waqtigaaga iyo qiimihiisa waxaad noqonaysaa qof rajo wanaagsan kale nolosha oo markiisuna joogto yahay. Ma bilaabata maalin walba nolol wanaagsan oo qurux badan. Si aad waqtigaaga qiimihiisa u ogaato una faa'iideysato raac 5 qodob ee soo socda. qodobka koowaad qorshayso waqtigaaga. Waqtigaaga oo aad qorshayso waa noloshaada oo aad qorshaysay inaad qorshayso waqtigaaga waa arrinka ugu horeeya aad kaga fogaan karto inuu waqtigaaga ka lumo. haddii aad waqti lumis iska ilaalisana waxaad ka faa'iidaystay waqtigaaga sababtoo ah waxaad ogtahay maalin kasta waxaad qaban lahayd. waqtigaagu waa shayga ugu qaalisan ee noloshaada waana shayga kaliya uusan dib ugu soo laabanayn hadduu markuu daayo. sidaas awgeed waa inaad qorshayso sidaad ugu faa'iidaysan lahayd waqtigaaga. waxaana ogaataa haddii aad lumisay daqiiqad waxaad lumisay saacad, haddii aad lumisay saacadna waxaad lumisay maalin, haddii aad maalin lumisana waxaad lumisay noloshaada oo dhan. noloshu waa safar u baahan qorsheyn iyo in loo sameeyo la hiigsato oo ay ku dadaasho. yaa ku qorsheynaya noloshaada? yaa ku qorsheynaya waxa aad rabto oo aad doonayso? yaa ku qorsheynaya hadafka aad noloshan ka leedahay? noloshaada qorsheyn leedahay? ma waxaadan awoodin inaad qorshayso maalmahan yar ee adduunka ku leedahay? haddaba waad awoodaa inaad qorshayso waqtigaaga keliya la imow rabitaan dhab ah. fadhiiso meel gooniya kana fikir waqtigaaga meesha uu ku lumo. waxaana hubaa inaad noqonaysid qof waqtigiisa ka faa'iidaysta dunida nalaad wanaagsan ugu taga. qodobka labaad wax uun baro ama ka faa'iidayso. maareynta waqtiga waxaa ka mid ah inaad naftaada wax u faa'iidayso xilliyada ay firaaqada noqoto aadan isdhixin wax walba waad taqaanaa. waxbarashadu waa furaha nolosha. dunidani mar walba waxaa la daafuraa aqoon cusub. waa inaad sii wadaa waxbarasho joogto ah. ka faa'iidayso mar walba wax noloshaada wax ku soo kordhinaya. kuna tababar dhibka, ku tababar wax akhriska, ku tababar wax walba oo ay dhibsato faa'iido nool leh. waayo naftu waxay iska jeceshahay raaxada. dadka dunidan wax ku soo kordhin waxay ahaayeen kuwo dadaala naftooduna ku tababara dhibka. qodobka saddexaad joogtay waxa aad qabanayso. waa inaad joogtaysaa waxa aad qabanayso si maalinle ah si sanadle ah. mid ay joogtanta leedahay waynu ognahay qur-aankana waana loo sheegay adduun ama mid aakhirba joogtay waxa aad qabanayso. qodobka afaraad dejiso yool aad hiigsato. markaad leedahay yool aad hiigsanayso ma ogolaanayso in waqtigaagu dheedheerkaaga lumo. waayo waxaad leedahay hadaf cad mana ogolaanayso in waqtigaagu kaa lumo. weydii dadka noloshaan horumarka gaaray dhammaantoodu waxay ahaayeen kuwo ku hamleeyay inay gaaraan halka ay maanta joogaan. ma leedahay hadaf leexaya waxa aad rabto? ma leedahay hadaf farta kugu fiiqaya waxa aad rabto? waxaan kuula talin lahaa inaad qorto aad qaabayso hadafkaad noloshan ka leedahay. uguma qaadanayso waqti dheer 15 daqiiqo aad keligaa intaad meel fadhiisato ayaad ku ogaan kartaa waxa aad rabto adigoo naftaada runta u sheegaya. qodobka shanaad qodobka ugu dambeeya ka adkow naftaada. markaad maarayso waqtigaaga waxaa ku soo wajahaya caqabad ah inaadan ku dhaqmi karin wixii aad qortay ama aad dejisatay. hadday ay noloshaada markii hore nolol iska soo ah waxaa adag inay ku dhaqanto qorshahan aad u dejisay sababtoo ah naftu waxay rabtaa mar walba inay ku hogaamiso dhanka raaxada. sidaas awgeed waxaa la rabaa inaad maya tiraahdo. haddaba ka yeel naftaada inaysan iyadu ku hogaamin aad adigu hoggaanka u qabato.